soo dhawaada asxaabay maanta waxaan sharxi doonaa filim zombi ah ee daawo oo tacadda fadlan haddaad nagu cusub tahana nagu soo biiro oo subscribe noo saar channelkeena gundagleela filimku wuxuu ku bilaabmayaa mid ka mid a jilaayaasha filimka oo lagu magacaabo Eva oo u diyaarinaysa hooyadeed cunto fudud marka ay hooyadeed bixi rabtana waxay ku dhahaysaa ku raaxayso safarkaaga laakiin Eva way ku jeesjeesaysaa taasoo keentay inay hooyadeed weydiiso waxa khaldan inkastoo ay Eva u sheegayso inaysan waxba khaldanayn hooyadeed waxay ku bilowdaa inay kula dhaliso waxyaabo ku saabsan qaangaarnimadeeda laakiin Eva waxay hooyadeed u sheegaysaa inaysan waxyaabo noocaas oo kale aysan kula tirin karin mar dambe isla markiiba waxaa imaanaya saaxiibadeed oo lagu magacaabo Tamra si ay u qaado Eva marka ay timaado Eva saaxiibadeed waxay weydiinaysaa sababta ay u jeceshahay mar walba inay ku labisato dharka inta ay ku jiraan safarkooda Tamra ma doonaysa inay weli ka sheekeynayso inaysan dharka ku fiicnayn taasoo keentay in Eva isla markiiba ay bilowdo inay iska bixiso jaakadeeda Tamra waxay u sheegaysaa in sidaan oo kale loo baahan yahay inay u muujiso quruxdeeda amase ugu yaraan ee tusiso jacaylkeeda cusub ee lagu magacaabo Stephen marka ay bilowdo Tamra inay ka sheekayso waxyaabo ku saabsan Stephen Eva waxay ku tiraahdaa naga hir mawduucaas oo uma baahnay arrimo ku saabsan jacaylkeeda cusub iyagoo si wada sheekadooda waxay si lama filaan ah shil ugu dhacayaan Randall oo jidka tilaabayay isla markiiba Tamra waxay bilaabaysaa inay Randall ku fiiriso indhka ay isla markiiba waxaa soo muuqanaya nin kale oo lagu magacaabo Danny isagoo koob askari ku satiraya Randall waxaa kaloo meesha ka maqnayn mid ka mid ah jilaayaasha filimka oo lagu magacaabo Hunter iyo Jesse Randall waxa uu weydiinayaa sababta ugu dhigtay koobkii casiirka ahaa laakiin waa ay ka tegayaan weliba iyagoo ku khasasliya marka ay yimaadaan iskuulka weliba iyagoo isku diyaarinaya safarkooda Samazino wuxuu qof waliba ka qaadayaa moobilka koorinta aysan tuurin baabuurka markii la soo gaaro wadaha gaariga oo lagu magacaabo Winnie wuxuu kula kaftamayaa sidoo kale inuu isaguna moobilka soo dhiibo hadda waxaa u bilowday safarkoodii qof waliba aad ayuu u faraxsan yahay Stephen iyo Danny waxay ka sheekaysanayaan gabadha oo fadhida oo lagu magacaabo Anjali laakiin iyadu waa ay iska faraxsan tahay Danny weli wuxuu wadaa qoodadii isagoo ku soo tiiraya dugsi Randall iyo saaxiibtiis isla markiiba xilli filaan ah darawalku wuxuu ka lumayaa wadadii markuu isku dayo inuu wadadii saxda ahayd ku soo laabtana waxay ku dhacayaa gaari waxaana wada dhiig noqonaya muraayada hore ee gaariga Winnie wuxuu si degdeg u isticmaalayaa bareega si uu gaariga si degdeg u joojiyo taasoo keentay in rakaabku ay ka boodboodaan kursigoodii waxa uuna gaarigu gelayaa shilwar Mr. Lazino wuxuu jeefin gareynayaa rakaabka inay nabad qabaan laakiin Tamra waxaa gaaray dhaawac yar isla markiiba waxay dareemayaan in qofku isku dayay inuu gaariga riixo waxay sidoo kale maqlayaan qaylo iyo guux fara badan qof walibana waa uu argagaxayaa waxauna qof waliba bilaabayaa inuu dhagaha qabsado dhawaaqa iyo qaylada aadka u daran awgeed qof walibana waa uu argagaxsan yahay xoogaa kadib Mr. Lazino wuxuu ogaanayaa in qofku taagan yahay banaanka gaariga waxauna soo garaacayaa daaqada gaariga qof waliba arrintaas waa uu la argagaxayaa marka uu Mr. Lazino uu albaabka furo isla markiiba ninku wuxuu Lazino ka qaniinayaa qoorta taasi waxay keenaysaa in qof waliba uu argagaxo oo uu ka cararo meeshii uu fadhiyey dadku waxay bilaabeen inay albaabka gaariga iska furaan iyagoo ugu cararaya banaanka waxaa lagu tutmanayaa mid ka mid ah ardaydii sarfaysay hadda kooxda badanaa waa ay soo badbaadeen isla markiiba waxaa imaanaya Randall isagoo u sheegaya inuu halkan ku yaalo dhisma ay ku dhumaan karaan waxayna kooxdu bilaabayaa inay u cararaan dhismaha balse nasiib xumo Danny wuxuu ku sanbirraxanayaa dhiig meesha yaallay waxaana soo badbaadinaya kooxdii hadda waxay isaga soo baxeen dhismihii iyagoo soo gelaya dhismo kale oo meesha u dhowaa waxayna kor u fuulayaan dhismihii intaa kadib Stephen iyo Eva iyo kulligood waxa ay daboolayaan meel walba oo zambigu uu ka soo geli karo marka ay xiraan dhammaan duleelada dhismaha kooxdu waxay maqlayaan qof banaanka ka dalbanaya caawinaad Eva waxay rabtaa inay badbaadiso qofkaas laakiin Randall ayaa u diidaya waxaana u sheegayaa inay dhuman doonto hadday isku daydo inay badbaadiso qofkaas waxaana halkaas lagu cunayaa qofkii banaha ahaa Eva weli waxay ku qeylinaysaa caawiya qofkaas laakiin cidna ma caawin doonto isla markiiba waxaa albaabka soo duminaya Winnie oo zambiga noqday kooxduna waxay ka cararayaan meesha waxayna gelayaan qol kale waxayna halkaas ku arkayaan saaxiibkood Rayaan Eva waxay weydiinaysaa waxa uu soo arkay Rayaan iyagoo iska wata sheekadoodii waxaa soo muuqanaya zambi weyn isagoo soo jebinaya albaabkii ilaa ay zambiyadu ku hareereysmaan dhammaan dhismaha kooxdu waa ay cararayaan Randall wuxa uu jebinayaa derbi si ay uga baxaan halka Hunter uu la dagaalamayo zambiga kooxda inteeda kalena waxay ka baxayaan duleelka laakiin Rayaan wuxuu ku dhibaatoonayaa inuu ku gudbo duleelka maadaama uu aad u buuran yahay Eva waxay isku dayaysaa inay caawiso iyadoo ku riixaysa nasiib xumo zambigu wuxuu qabsaday Hunter marka uu arkay Danny in zambigu uu qabsaday Hunter waa uu ka soo cararayaa isagoo argagaxsan Eva waxay ku guuleysanaysaa
inay ka baxdo duleelka weliba daani oo caawinaya waxayna gelayaan qol kale laakiin daani wuxuu u muuqdaa mid niyad jabsan isagoo ka xun inuu badbaadin waayay hanta waxauna ku canaananayaa qof waliba inuu istaahilo waxa ku dhacay hanta isla markiiba wuxuu arkayaa qof boondala ah oo isaga u eg qof walibana wuxuu arkayaa qof la moodo inay u eg yihiin iifar waxay arkaysaa qof u eg wejigana wax uga qoran yihiin isla markiiba waxaa soo gelaya darawalkii gaariga ee zambiga noqday daani wuxuu isku dayayaa inuu celiyo laakiin si fudud ayuu dhinac ugu tuurayaa marka uu weyne isku dayay inuu qabsado timra randal ayaa madaxa kala dhacaya alwaax weyn zombi weyni waxa uu ku dhacayaa dhulka randal wuxuu sii wadaa inuu madaxiisa garaaco kadib markii uu ka daalo waa uu iska daynayaa timra waxay u carartaa randal iyadoo ku tahagelinaysa inuu noqday badbaadiyaheeda iifar waxay meesha ka helaysaa agab afkici kara isla markiiba deeni wuxuu bilaabayaa qufac aad u daran marka uu calooshiisa ka qaado funaanada waxaa la ogaanayaa inuu zambigu saameyn u geystay isagoo dareemaya qabow waxa uu jaakada ka qaadanayaa boombalihii meesha taagnaa ka hor inta uusan fuulin dhismaha marka uu daani uu ku dhibaatoonayo socodka kooxda kalena waa ay soo raacayaan iyagoo wata buufino daani wuxuu soo jeedinayaa in dhammaan zombiga la gubo waxayna isku dhacayaan rayaan waxauna ku riixayaa derbiga isagoo ku eedeynaya inuu ka dambeeyey inuu zambigu qaniino laakiin iifar ayaa ka celinaysa isla markiiba deeni wuxuu bilaabayaa inuu si macno la-aana u hadlo isagoo u sheegaya inay naceen kadib markii uu zambigu qaniinay si lama filaana zombi weyni ayaa soo baxaya qof walibana wuxuu dib u baxayaa laba tilaabo marka laga reebo deeni waxayna labadooda ka dhacayaan dabaqa inkastoo ay arkayaan deeni inuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo isagoo si toosa u noqday zombigii randal wuxuu soo jeedinayaa inay samaystaan xayndaab aysan u soo gudbi karin zombiga halka iifar ay doonayso inay doontaan caawinaad dibadda ah waxayna soo jeedinaysaa inay zombiga isugu keenaan hal dhinac si ay uga baxsadaan laakiin randal waa uu ka soo horjeedsanayaa waxayna ku dhahaysaa tani uma baahna ogolaanshihiisa waxayna isku xirxiraysaa buufino badan iyadoo ku shidaysa dab waxayna ku tuuraysaa gaari dhismaha hoos yaallay dabka weyn ayaa qabsaday gaariga taasoo soo jeetay qaar ka mida zombigii isla markiiba iifar waxay raadinaysaa waddo ay ka bixi karto inkastoo tamra ay ka soo horjeedo haddana waxay doonaysaa inay saaxiibadeed ka harin dhammaan kooxdu waxay isku dayayaan inay joojiyaan iifar istiifanna wuxuu soo raacayaa iyada waa ayna u mahadcelinaysaa marka ay gaareen baska iifar waxay raadinaysaa agab ay isku difaaci karaan laakiin meesha waxay ku arkayaan gacan bini'aadam waa ayna argagaxayaan hadda waxay heleen boorsadii ay ku jireen moobilada laakiin iifar waxay ogaanaysaa in dhammaan moobiladu ay jajaban yihiin waa ayna niyadjabaysaa istiifan wuxuu isku dayayaa inuu dejiyo laakiin isla markiiba waxay maqlayaan in raadiyaha gaarigu uu dhawaaqayo waxayna ogaanaysaa inay tani ahayd cajlad maduubay oo keliya isla markiiba wuxuu irbad dareero cagaaran uu ku jiro uu ku dirayaa iifar waxa uuna ka raaligelinayaa inuu ku sameeyey midaas daani ayaa isla markiiba soo muuqanaya isagoo ugu hambalyanaya inuu shaqo fiican qabtay maadaama iifar ay dareentay dhibaatada irbadda xoogaa kadib iifar waxay ka soo kaxaysaa hordadii waxayna arkaysaa luzino oo dhinaceeda yaala waxayna maqlaysaa randal oo ku canaananaya inuu ka dambeeyey stephen gursada luzino waxaa isla markii soo muuqanaya nin kale oo iska dhigayay zombi halka uu luzino soo kacayo waxa uuna u sheegayaa ninkii ka dambeeyey inuu gaarigu shil galo inuu ahaa ninka hadda iska siibay maaskarada isagoo gaariga ku soo tuuray buufin ay dhiig ka buuxdo irbadda lagu durayna ay ka dhigi karto inay qaadato amrada zombiga intaa kadib iifar waxaa soo weeraraya ninkii iska dhigayay zombiga balse waa ay ka xoog badinaysaa waxayna dib ugu soo cararaysaa dhismaha halka ardaydii kale ee zombiga noqotay ee meesha ku xiran yihiin waxaana meesha ku dagaalamaya randal iyo iifar maadaama randal uu ahaa khiyaanoole balse ugu dambeyn randal waxaa meesha ku qabsanaya zombigii waxaana dib u soo fiicnaanaya deni halka randal uu noqonayo zombi iifar waxa ay isku diraysaa cirbadda ka hortaga zombiga waxaana soo wada baxaya dhammaan zombigii waxaana halkaas ku dhex maraya dagaal aad u daran balse ugu dambeyn kulli kooxdu waxay ku soo laabanayaan bini'aadamnimadoodii marka laga reebo randal